الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan iyo aakhira ilaahay waa ku cadaabi waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir maaha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimmadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimid in ilaahay ba uu qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa leeyahay salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ceedeeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyey hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyey hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyey hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyey hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyey hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhaara loo jideeyey istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblayo noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaadu nabigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa wixii uduge udgoon wannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi salaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaadaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaasay barteen iyagu inay salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyadaba ay ka tagaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaada xidho thaabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alli markuu salaada tukanay lilmada ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli salaati ل20 sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyada salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahoonu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan masjidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaada dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabtaa lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaadu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaadeeda ku dhammaystaa buu ayay raisli ninkuna dareenka ku dhammaysataa masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa wa ama in kaana min almukadibiina adaalliin masaajidkao dhan baa yidhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labada halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo alla bilownu midh anagu alla waa ku darragu laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qaylin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buu والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يلي رسولك دارت وارتانك وصاحبك إلا قبضا بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجعل عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكم ذا يلي رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asagaa dhimashada u diyaar man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu le lacag haddaad haysa mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonaya qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو شقد هذه كيم دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر ولا فديك ورا ولله المثل الأعلى هلك إلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jirka la sheegay inay keliya tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك حتى حقاقت جرك ودن با حقاقي حتى باناتنا جرك ودن با بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول حتى قلبك حقاقه قلبك محوكو حقاقيا وإلهي معرفة ديسا حتى قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبنها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عصيان كيسا كدعي مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيا دقيهيني وحي مقلان بي دقيسانيا قعمهيني وحي الربان بي قبانيا لغيهيني ماشي الربان بي آذيا دقالهيني ماشي الربناكو بحنينا هذا الكيني ماشي وحن ظنكو هاللينا فحن ظن حسن البصري رحمه الله يا يري صد السنة ما قسل أفرت السنة ما كفتمن وحن سوغاري الرق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لجوغا عن اسكم مليني إن أنا نقطوغا عن اسكم مليني وإمامك وخير التابعين ويا وعالمك تابعين توقع علم البناء ويا نوح هذا الكالي صد السنة ما قسل بويري أفرت السنة هذا الكفتما إقام الصوبحين waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jirka xubintaa hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meelu ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمرك إلالي هذا إلهي باكو إلالين
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaaray tiinuhuna ma cadaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirku leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxa lagu yiri da'daadii waa tan dhaqaaqi leh dhalinyaradii ka yaryaraydoo way buusbuuseene way gaboobeen adoo maxaad cuntaa baa laga yiri noo sheeg wuxuu xadiiskaas ku amal falaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmada araga ilaahay kuma caasin buu ilaahay aragiibu quwadii arag wii ilaaliyay buu nicmada maqalka ilaahay kuma caasin ilaahay quwadii maqalku wii ilaaliyay buu nicmada maaragtaani xoog iyo dhalinyarnimada ilaahay kuma caasin nicmadii dhalinyarnimadii iyo xoogii baa ilaahay ilaaliyay ihfadillaah yahfadka baa ku shaqeeyaa buu anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya idagana maanta dhalinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratul macaasi waa macaasida weeyaan amarkaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leehay waxaan doonaan eegi waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahay haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsado khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisa addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommahan la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu galo markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay hada macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula baa ilaahay dhulka markaad socotona kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dilaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariyakaad ila daciifa tahay hay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey hay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhiray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacadiisa waa ilaahay macrifadiisa daatadaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biyo kaa buuxa waxa bini aadamku ay haystaan maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya hore ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaasana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baad